iyadoo bishan lagu jiro oo kale ay ku beegan tahay bishii Koonfur Afrika lagu soo bandhigi jiray hidaha iyo dhaqanka ee wadamada qaaradda Afrika ayaa waxay arintaasi si weyn uga duwan tahay sanadihii hore taasi oo ah in xafladani oo soconaysa 3 maalin ay furi doonaan aqoon-yahano iyo culimadiin Soomaaliyeed kuwaas oo khudbado ku saabsan diinta Islaamka ka jeedin doona halkaasi oo ay ka soo qayb galayaan boqolaal qof oo ka kala imaanaya guud ahaan qaaradda Afrika. dhanka Soomaalida ayaa arintaasi waxa uu qaabilsan hay'adda gargaarka qaxootiga Soomaaliyeed ee SORA iyo hay'adda culimadiinka Soomaaliyeed ee Albaan kuwaas oo iska kaashanaya sida dadka kale ee qaaradda Afrika kala imaanaya loo soo bandhigi lahaa dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliya iyo diinta Islaamka sida uu sharxayo Sheikh Bajidiin Maxamed Sheikh Xuseen oo ka qayb galay kulan loogu galxaarayo bandhigaasi oo dhacaya 25 bishan aan ku jirno. balansanahay aan u fadhinay inaan ka shaqeyno gobol xaad loo sameeyay kulan weyn oo ah bandhig dhaqameed dhici doona 25 bishan October ee aan ku jirno kaas oo ujeedadiisu tahay in lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan ay qabaan dadka wadankan aan joogno inay ku soo bandhigaan wuxuu ka kooban yahay 3 maalmood dabcan labada maalmood ee hore ayaa naga aadno khuseeya maalinta koobaad Soomaalida ayaa waxa laga codsaday inay soo bandhigaan waxa ay aaminsan yihiin diintooda iyo dhaqankooda dadkana ay u soo bandhigaan maalinka isaga marka anaga ayaa hawsha maamulayna oo hal saac ay bar muddo soconaysa dad ilaa 200 ka badan baa isugu imanaya nin culimo ah ayaa wuxuu ka hadli doonaa islaamka iyo wuxuu yahay maalinka labaadna wuxuu yahay maalinka oo dhaqamadii kala duwan la soo bandhigi doono anaguna waxaan soo bandhigin doonaa dhaqanka iyaga islaamka ee soo jireenka ee diinta islaamka waafaqsan 100% waxaan tusi doonaa dadka waxaan aaminsanahay inuu yahay wax diinta waafaqsan wax inuu yahay ummadda iyo jiritaankeeda ka shaqeynaya ee aan ahayn ummadda cadow aan ku ahayn labiska iyaga iyo xijaabka gabadha ay xiran tahay inuu yahay wax dhaqankeeda iyo diinteeda ee wax qaranaysa uusan jirin. sidoo kale gudoomiyaha hay'adda gargaarka qaxootiga Soomaaliyeed ee SORA Cabdiraxmaan Farax Cusmaan oo la hadlay TV-ga caalamiga Universal ayaa sheegay in ka qaybgalka bandhiga noocan oo kale ay tahay buundo isku xirayso dadka Afrikaanka isla markaana la doonayo in la is aqoonsado lana tixgeliyo dhaqamada kala duwan ee qaaradda Afrika. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa bandhiga dhaqameedka sanadkan waxaa loogu magac daray building bridges in la dhiso buundooyin ka dhaxeeya qowmiyadaha diimaha kala duwan leh midabka kala duwan leh ganacsatada ururada iyo nooc kasto ay bulshadu ka mid tahay inay wada hadlaan wada sheekaystaan isfahmaan istixgeliyaan wada noolaadana ganacsigii iyo horumarkii iyo magaranaysaa loogu kor qaadi lahaa noloshoodii hadday noqoto haddii ereyada magaalada Western Cape noqoto sidii ay u yaraan lahaa khilaafka iyo isfahan darada iyo waxyaabahaas oo dhan ay u yaraan lahaayeen muhiimadda laga leeyahay waa taas. Maxamed Musannuur Deeqtrejo Universal TV South Africa.